Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Soo dhawaada asxaabta meel kastoo dunida ka joogteen. Walaalkiini Maxamed Ali Axmed halkaan nagala socotiin waa Xasiliin Media. Marka hore muuqaalkaani like saar dad fara badan u gaaro. Haddii nagu cusub tihiin subscribe noo saara. Aad iyo aad u mahadsantihiin. Waxaan rabaa inaan idin soo gudbiyo dhacdo qabsatay Sheekh Cabdirashiid Al Suufi. Sheekha wuxuu ka mid yahay culimada Soomaaliyeed kuwoodii ugu waaweyn. Sidoo kale waa sheekh ku aanbaxay akhrinta Quraanka Kariimka. Sheekh waxaa qabsatay dhacdo aad u yaab badan. Wuxuu yiri waxaan ahaa arday dhigta jaamacadda Al Azhar ee dalka Masar. Waxaa la gaaray waqtigii fasaxa. Waxaan go'aansaday inaan dib ugu soo laabto dalkaygii Soomaaliya. Waxaan bilaabay inaan isku diyaariyo safarkii aan ku imaan lahaa dalkaygii Soomaaliya. Waxaan haystay hoogoo lacag ah. Waxaan ku soo iibsay kutubo. Qorshahaygan wuxuu ahaa markaan imaado Soomaaliya inaan akhristo kutubadaasi. Balse maxaa dhici doona? Waxaa la gaaray waqtigii safarkaygii. Waxaan soo diyaarsaday boorsooyinkaygii. Waxaan ku soo diyaar garoobay airport-ka. Waxaan gudaha u soo galay airport-kii. Waxaan u imaaday ninkii alaabta miisaanka saaray. Markaas ayuu miisaamay. Wuxuu arkay alaabtaydii inay aad u fara badan tahay. Wuxuuna igu yiri waa inaad bixisaa lacag dheeri ah. Waxayna ka badan tahay intii loogu talagalay qofka in free loogu saaro diyaaradda. Markaas ayuu igu yiri waa inaad lacag dheeri ah bixisaa sababtoo ah alaabtaadii aad ay u fara badan tahay. Waxaan ku iri wax lacag ma haysto. Wuxuu u qaatay inaan ku jeesjeesay. Wuxuu igu yiri waxa ku binaan oo kaliya 2 mid waa inaad safartaa alaabtaadii halkaan ugu tagtaa ama in alaabtaadii lagu safariyaa adigan aad halkaan joogtaa. Markaas ayaan ku iri idimka alle aniga iyo alaabtaydii waan israacaynaa. Markaas ayuu aad u xanaagay. Boorsooyinkaygana halkaas ayuu ku tuuray. Anigana waxaan iska fadhiistay goobtii. Waxaa la gaaray waqti habeena. Waxaan galay masjid ku yiilay airport-ka. Waxaan bilaabay inaan Ilaahay subxaanahu wa ta'aala bariyo. Waxaan tukaday salaad. Waxaan akhristay Quraanka Kariimka. Waxaana aad u bariyay Ilaahay subxaanahu wa ta'aala. Anigoo Ilaahay subxaanahu wa ta'aala gacmaha u taagtay. Waxaa iga soo dhacday aayad aad u qiimo badan. Amma yujiibul mudtarra idhaa da'aahu wa yakshifu as-suu wa yaj'alukum khulafaa'a al-ard a ilaahum ma Allah qaliilan ma tadhakkaruun. Aayadan ayaan xasuustay ayuu yiri. Ilaahay subxaanahu wa ta'aala ayaan bariyay. Aayadani aad ayaan ugu celceliyay ilaa laga gaaray waqtigii salaada subax. Markii la gaaray waqtigii salaada subax waxaan ahaa qofka muuqata haybada culimada. Dadkii waxay igu yiraahdeen salaada naga bixi. Markaas ayaan salaadii geliyay. 2 rakacadood ayaan dadkii tujiyay. Markaan salaam naqsaday waxaan arkay nin sarkaal oo gadaashaydii fadhiya aad u ilmeynay. Markay dadkii kala tageen wuxuu igu yiri codkaadii aad ayaan u jecelaystay ee hoogaan oo akhri Quraanka Kariimka. Waxaan bilaabay inaan akhriyo Quraanka Kariimka. Ninkii aad ayuu u jecelaaday codkaygii. Wuxuuna ii muujiyay ixtiraam dheeri ah. Wuxuuna i geeyay xafiiskiisii. Markaas ayuu igu yiri keen baasaboorkaagii. Waxaan u dhiibay baasaboorkaygii. Markaas ayuu igu yiri waqtigii duulitaankaadii wax yar ayaa ka dhiman. Waa maxay sababta aadan ilaa hadda u buuxinin foomkaani? Markaas ayaan u sheegay xaaladaydii. Markaas ayuu shaqaalihii ku yiri waa kuma ninkan feelkiisii qofka haya. Markaas ayaa loo sheegay. Wuxuuna ku yiri iigu yeera. Waxaa la keenay ninkii shalay iigu xanjabay adiga iyo alaabtaadii mid ayaa dhoofi doona ama haddii kale halkaan ayaad joogaysaa. Ninkii markuu arkay aniga oo la fadhiya taliyihiisii aad ayuu u gariiray. Markaas ayaa lagu yiri ninkan foomkiisii si dhaqsa waa inaad u soo buuxisaa. Markaas ayuu yiri haye waa diyaar. Sida ugu dhaqsiyaha badan ayaan u soo buuxinayaa. Ninkii foomkaygii ayuu ii soo bixiyay. Wax walibana waa ii soo diyaariyay. Sidoo kale boorsooyinkaygii ayuu ii keenay. Markaas ayuu igu yiri alaabtiisii iyo macal foomkiisii waa kuwani. Markaas ayaan ogaaday awoodda ay leedahay aayadani Ilaahay subxaanahu wa ta'aala. Markaas ayaan soo safray aniga iyo alaabtaydii. aad iyo aad ayaan u farxay ayuu yiri. Markaas ayaan xasuustay muhiimadda ay leedahay aayadani aad u qiimo badan. Amma yujiibul mudtarra idhaa da'aahu wa yakshifu as-suu wa yaj'alukum khulafaa'a al-ard a ilaahum ma Allah qaliilan ma tadhakkaruun. Waxaa loo baahan yahay inaynu Ilaahay subxaanahu wa ta'aala in badan barino. Ilaahay subxaanahu wa ta'aala qofkii gacmaha u taagta kurbo waliba waa ka feedaya. Sheekhaani
wuxuu la korbaysanaa wuxuu samayn lahaa sababtoo ah xog fara badan ma uusan ka haynin airportka balse ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu qadaray in shiikhii asagoo aad u faraxsan halkaasii ka soo baxo dalkiisana uu ku imaado farxad iyo reereen asagoo aysan ka bixin waxa lacag dheeri ah. haddaba ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaa loo baahan yahay inaynu aad ugu kalsoonaano. ilaahay subxaanahu wa tacaala waa inaynu barino. ilaahay subxaanahu wa tacaala waa allaha wax waliba diyaar noola ah. anaga ayaa la rabaa inaynu ilaahay subxaanahu wa tacaala ku kalsoonaano. walaalayaal waxa aad muhiim u ah inaynu ilaahay subxaanahu wa tacaala wax waliba weydiisano. ilaahay subxaanahu wa tacaala qur-aankiisa wuxuu ku leeyahay wax i weydiista aan idinka ajiibe aan wax weydiisano ilaahay subxaanahu wa tacaala. badankeeni waxaa laga yaabaa inay nolosheeni areeri nooga jirto. badankeeni waxaa laga yaabaa inay xaaladaheeni aad u akrin yihiin. ilaahay subxaanahu wa tacaala gacmaha aan u taagano. qofkii ilaahay subxaanahu wa tacaala barya sida Sheekh Cabdirashiid Al Suufi wuxuu siinayaa wax waliba oo u baahnaa. sheekhaasi ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu u suurtageliyey inuusan ka harin diyaaradii uu raaci lahaa sababtoo ah ilaahay subxaanahu wa tacaala ayuu baryay habeenkii oo dhan ma uusan seexanin. aayadani ayuu aad ugu celceliyey ama yujiibu lmudara idaa dacaa wayakshifu suu wayajcalukum khulafaa'a alard a ilaahum maca allah qaliilan maa tadakkaruun. waa aayad aad cajiib u ah looga baahan yahay qofka muslimka inuu ka faa'iidaysto. ilaahay subxaanahu wa tacaala qofkii barya oo gacmaha u taagta wax waliba waa siinaya. anaga ayaa loo baahan yahay inaynu ku kalsoonaano ilaahay subxaanahu wa tacaala. walaalayaal waxaan rajaynayaa qisadaani inay noo noqon doonto cibro qaadasho. qof kasta oo raba inuu noloshaani horumar ka gaara waxaa looga baahan yahay inuu saxo xiriirka uu la leeyahay ilaahay subxaanahu wa tacaala. maalintii aad hagaajisid xiriirka aad la leedahay ilaahay subxaanahu wa tacaala maalintaasi waxaa kuu bilaabmi doono guul. waa maalintii aad hagaajisid xiriirka aad la leedahay ilaahay subxaanahu wa tacaala. qofka hadduu ilaahay subxaanahu wa tacaala xiriirka kala dhahay aad u wanaagsan yahay noloshiisii waxay noqonaysaa mid aad u qurux badan. walaalayaal waxaan rajaynayaa qisadaani inay noo noqoto cibro qaadasho. qof kasta oo raba inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala horumar gaarsiiya waa inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala baryaa. waa inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala gacmaha u taagaa. waa inuu soo kacaa sagda dhexe ee habeenkii si u gaaro horumar aad u weyn. walaalayaal waxaan rajaynayaa qisadaani inaad ka faa'iideeyeen. muuqaalkaani like saara si dad fara badan u gaaro. haddii naga cusub tihigna subscribe noo saara. aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin. intaan muuqaalka muuqaaliga aan ku kulmi doono sidaas nabadgeliyo. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu.